Marka hore aan kuu soo bandhigo warbixin kooban oo ku saabsan Larry. Waa khabiir ku takhasusay bartayna culuumta kombiyuutarka kaasoo aasaasay shirkadda Google isaga iyo saaxiibkii Sergey Brin sanadkii 1998. Larry ayaa dhashay 26 bishii saddexaad 1973 waxaana ku dhashay bariga magaala madaxda maamul goboleedka Michigan ee Lansing. Aabihii waxa uu ahaa xilligaa nin qaatay shahaadada loo yaqaano PhD, sidoo kale waxa uu ahaa macalinka ugu sarreeya macallimiinta kale ee jaamacadda Michigan State University. Hooyadii waxa ay ahayd mid ka qalin jebisay kulliyadda samaynta aaladaha ay kombiyuutaradu ku shaqeeyaan ama loo yaqaano program. Maadaama uu ka soo jeedo qoys iyaga dhami ahay kuwa ku takhasusay aaladda culuumta kombiyuutarada, Larry ayaa ku dhiiraday inuu waqti badan ku bixiyo akhrinta buugaagta iyo warbixinada ku saabsan tiknoolajiyadda. Dadaalo dheer kadib, isaga oo jira da'da 12 sano ayuu ku fekeray inuu aasaaso shirkad, taasi oo dad badani maanta aysan rumaysan. Bal ka waran, wiil da'diisu tahay 12 sano ma ku fekeri karaa inuu shirkad aasaaso? Jawaabtu waa dhankeena. Sanado kadib waxa uu qaatay shahaadada bachelorka waxaana ka qaatay jaamacadda Michigan State University. Sidoo kale waxa uu qaatay shahaadada masterka waxaana ka qaatay jaamacadda Stanford University. 2007 ayuu guursaday Lucinda, taasoo ahayd cilmi-baarto sidoo kalena ahayd gabar model ah ama xayeysiisa dharka. Hadda waxa ay leeyihiin 2 carruur ah kuwaas oo kala dhashay sanadadii 2009 iyo 2011. Sanadkii 2014 ayaa shirkadda Page Family Foundation ay ku bixisay lacag dhan 15 milyan la dagaalanka cudurka Ebola ee ka jiray qaybo ka mid ah galbeedka Afrika. Sanadkii 1998 Page iyo Brin ayaa go'aansadeen inay ballaariyaan shirkadooda soona bandhigaan warbixintoodii ugu horreysay. Si dhaqso ah ayay ku bilaabeen inay raadiyaan shirkado maalgashada shirkaddani si ay u horumariyaan shirkadooda. Mid ka mid ah aasaasiyaasha shirkadda, Sun Microsystems, ayaa maalgashaday waxa uuna maalgashaday lacag gaaraysa $100,000. Muddo kadib, lacagtii ayaa isku beddeshay $1 milyan, taa oo 10 jibbaar u dhigmatay lacagtii lagu maalgashaday. Ugu dambeyntii, Google Inc. ama shirkadda Google ayaa la aasaasay 7 bishii 9 1998. Craig Silverton ayaa shaqaalihii ugu horreeyay ee ka shaqeeya shirkadda Google muddo kadibna noqday agaasimaha arrimaha tiknoolajiyadda ee shirkadda Google. 2002 ayaa loo magacaabay World Economic Forum. 2004 Page iyo Brin ayaa si wada jir ah ugu guuleystay Marconi Foundation Prize. 2008 ayuu ku guuleystay abaalmarinta xiriirka dadweynaha ee dhinaca baraha bulshada, taasoo uu ka helay boqortooyada ka talisa Austria. 2011 ayuu soo galay imtixaanaha bilyaneerada caalamka waxaana ka galay kaalinta 24aad. 2014 ayaa wardaabacaha Fortune waxa uu magacaabay ganacsadaha sanadka. AdSense waa adeeg ay lacag ka samayn karaan dadka isticmaala website-yada YouTube-ka, Facebook-ga iyo wixii la mid ah. Balse su'aasha ugu badan ee isweydiiyaan dadku waxa ay tahay, xagee ayuu Google lacagta ka keenaa? Markaad daawanayso muuqaal, waxaad aragtaa muuqaal yar oo xayeysiin ah oo ka horeeya fiidiyowga. Waxaa lacagta dadka lagu siiyo waa ka. Tusaale, waxaad aragtay iyada oo la xayeysiinayo iPhone. Taa macnaheedu waa in shirkadda iPhone ay lacag ku bixisay xayeysiinta ayna siisay shirkadda Google. Sidaa darteed, Google waxa uu leeyahay shaqaale, waxaana ka mid ah anigan idinla hadlaya. Waayo waxa aan video ku arkaysaan waa link ay siisay shirkadda Google. Sidaa darteed, shaqada ay qabtaan dadka ka shaqeeya YouTube-ka ama website-yada iyo wixii la mid ah waa suuq-geyn ama marketing. Barnaamijkani waxaa la dhihi karaa waa laf-dhabarka dadka, waayo waad aragtaa waxa uu kaa caawinayaa inaad meel aadan garanayn ama aadan weligaa tegin aad si fudud ku tagto, adiga oo aan shaqsi wadin amaba aadan dhihin hebelow waxaan u baahanahay meel hebla ee kaalay igey ama keliya waxaad u baahan tahay inaad u sheegto meesha aad rabtid, kadibna aad bilowdid socdaalka ilaa uu kaa yidhaahdo waad joogtaa halkii aad rabtay. Dad baa waxa ay leeyihiin ma aqoonsan yahay magaalooyinka ama wadooyinka dalka Soomaaliya? Jawaabtu waa haa, waadna ku safri kartaa barnaamijkan Google Maps.
Gmail waa aalad u shaqeysa sida Hotmail, Yahoo iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxa ay leedahay qaybo kale sida wada sheekaysiga, wicitaanada codka ah, iyo weliba lambarada inaad ku kaydsato. YouTube sanadkii 2006 Google ayaa iibsaday YouTube oo shaqaynayay markaa muddo 1 sano ah, wuxuuna ku iibsaday lacag gaaraysa $1.65 bilyan. Muddo kadib ayaa loo oggolaaday in dadka iska diiwaan gelin karaan oo ay soo gelin karaan muuqaaladooda. Waan filayaa inaad ka faa'iiday warbixintan aan idin soo bandhigay. Dad badan ayaa isweydiinaya waa maxay sababta aan u soo bandhigayo warbixinta shakhsi aan Muslim ahayn ama aan Soomaali ahayn. Sidaa maaha arrinku. Sababta aan u soo qaadanayo warbixintan waxaan uga gol leeyahay inay dadku kala baxaan wixii faa'iido ama nuxur ah oo ku jira sheekadan, ama kuna fikiraan inay sameeyaan wixii uu sameeyay in ka badan shakhsigan. Waxaan filayaa inaad fahantay ujeedadeyda. Waxaan sugnaa waa maalintaada.